هل مرة فيري فرتون أنا فيري أنا فيري فرتون آية فرتون آية فرتون ديرية فرتون ديرية عقال فرتون عافمات كذا كور فرتون وحنوسن تاي فرتون نكي أركو عد كذا يو وجه كذا يصوت كذا وقبر سومالية دو حنوسن waxaan u bandhigaynaa in aan macnaha aan dadka dadweynaha yaqaano oo aqoonsado fartuun waa gabar xanuunsan waa gabar macnaha ay joogto deegaanka Afgooye barigiisa meel ah fartuun waxay la joogtaa wiil oo wadaadkeeda ah ay wax isku dhaleen waa inay xanuunsan tahay xasan fartuun ka waran caafimaadkeeda adiga ayaa xaaskaada miya haye صاحب فرتون مدة بدن أيان هاي وأنا اللي تاحوجا معنا وجع كروقات عد كذا ما قلنا حنون أياك سوى وجهي حنون سوى وجهي واقرته وحنون سنتاج واقرته مدة بدن وهايا مدة بدن وهايسا أما السنة يقولون نوشاي 6 سنة عمل 6 سنة يقولون نوشاي فرتون وحال كذا وحال كذا وحقرابة إذا ماركت مية هاي واقرته هاي markay imaanaysa ka waran makalageeda ku timid fartuun mise adigu unbaan meel ka soo wadatay meel wada ah ka soo waday meel oo duur oo baadiyo ahdeeda meel baadiyo ka soo waday dawadeed maxay ku tiri gabar unaag madax banaan ah waa gartay waa isfahanay waa iska nikaxsan ayadana way caafimaad qabtay mugaas ma caafimaad qabtay sidaan ahayd waa xanuun xogaa adiga caajis waa iskaga jiray laakiin sidii waa dhaantay waa caafimaad qabtay hadda waa dhul dhacday aad ay u leedahay waa gartay hadda meeqad ay ku dhashay saddex carruur ay dhashay laba waa iga saqiirtay saddex carruur ay ku dhashay laba waa ka saqiirtay mid gabar ayaa ku joogto si fiican fartuun waxa ahalkeedii wax qaraabadeeda ma aragtay midna ma hayo midna ma hayso waa gartay ayada ka waran caafimaadkeeda ka waran hadda si maxay cunto ahaan raashin maalin waa iska cuntaa waxaa loo geeyo maalina ma cunto adiga marba si waa adiga caafimaadkeeda caadi ma fartuun ay u dhalatay فرتون سدا إيدا أي شيء دليشة وحي ترى مريحانة هاي دارو فرتون يفير المر دليشة إذا ما يدري فرتون وعنا هاي قبل مريحانة مريحانة يكتاي وقردع يكتاي سدا يكون شيء تمرك عاف ما ضبطي وقرتي فرتون ديري عقال أو gabadhan magaceeda iyo wajigeeda iyo suuradeeda ninkii yaqaan waxaan u baahanahay inay nala soo xiriiraan waa gabar Soomaaliyeed waa gabar xanuunsan telephone numberkana waxa weeye furaha 5 weeye 44 76 waxaan haayo ninka wadaadka oo xaaska Xasan Maxamed Ibraahim waa wadaadkayda nooshahay oo ay u dhashay 3 caruur laba ay ka naqatay iyo hal ay u joogo fartuun maxaa ku maqashay meelahan markay joogtay ilmo kale meel ku soo dhashay mise maaragta carruur kala soo dhalay intay ku nooshay tiri qof kale iga dhalay intay ku nooshay tiri carruurteeda carruurta mid waa iga dhintay dhahday isbitaal banaadir oo ku dhintay midna aabisa isticmaalkiis ninka oo ka dhalay waa ninka ka dhalay nin oo abgaalo hilaaba warsangeli nin abgaalo hilaaba waa intuu ku nool yahay oo wuxuu ku nool yahay xamar hadda laakiin ma ogid meel uu ku nool yahay ma xasuusto ayada laakiin maalinkaas way xasuustay fartuun waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed oo arko codkeeda amba muuqaalkeeda ma hadlayso dalka iyo dibadda ninka ka aqoonsado fartuun ifiir hal mar fartuun diiri cigaal waa wajigeeda saas waaye waa gabar Soomaaliyeed annaga waxayna nooshahay muddo 8 sano ah waxaan rabnaa fartuun inaan u bandhigno dadka iyo ahalkeeda iyo deegaanka ee laga yaqaano fartuun waa gabar mariixaana waa qolo la yiraahdo wagardhac ninkii garanaayo cid garanayso waxaan rabnaa inay kala soo xiriirto nambarkaas furaha 5 4 4